member of G10. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مقعي عبد البر اللي هذا وحن كم إذا هاي جالية مينيسوتا قدري فرونتير كهاي قبل قابضة خاتمه diaspora association وحن مركب رحم باليوم كذا دمان مدة الصومالية يدير في عن صايف بحذي هذا وقته إنه يصون قنا يصون من نمدي يدور دي نجاب برتة وعنيد قرنك الصومالية وحن أهم بلينا يا دمانتي كسر شقيسي إن ما دام من نمدي الصومالية ده هراي كبلا بنتي دولك خاتمة استيد ما أنتنا أي هالكي كسر بحذي هؤلاء الذي كسر شقي هوشاس يعني دبر ضيقي أنتي قرب سيسي يدمان شاريده الدبدة وكقيب قاتي إن الدبدة واسان أرنتها وناكسن من نمذا السحرين من نمذا أمد الصوماليات وحنكروا هاد علينا مدحدي قرنك أو دارتي شعبك يدولك الصوماليات إن يسوع عليها شرفته دي كرامته دي أو أي ما أنت موقته إن يهرمودوا يهين ملهدين الله أركيو aad ayaan ugu hambalyeynaya waxaan kaloo u hambalyeynaya gaar ahaan jaaliyada reer Minnesota dadaalka dheer ama aadka u tayada fiican ee ay muujiyeen la garab taagan yihiin maamulkooda iyo dadkooda iyo wada shaqaynta fiican ee asa community ahaan ama gudida frontierka iyagu naga dhaxaysa ee waqti walba diyaar u leeyihiin aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan oran lahaa dadaalkiina halkaa ka sii wada haddana hadal intii waa la yidhi waxaan ku soo dhaweynayaa maanta sharaf noo ah nala jooga odayaashii aanu halkan ka diray ee noo aaday shirkii hawsha aan maanta ku faanayno ee Soomaalina ku wada faanayso soo dhaliyay ee gidaarka u soo seexday odayaashaas oo maanta inay kala joogaan خليف يا عبد الوهاب إيو شي وضياشي شي تنكا أو ما أنت نقلت شو شرفنا عبد الرشيد معلن مركا وحنا لا يدكنا المرهيات كانتين وادرك تاني يعني ماشي مريسو وادنا كل ما هالسنتين التاريخ طريقة يسقري دونتا هذه أنا دوم يصدقنا وحكوسوا لوينيا ضياشي تشيتن عبد الرشيد معلم ويلكم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أولا محط إلهي بأسكاله كبعدي كنت بحلم على علينا يا باشا أما ددوينها كنا قبل كان قدم السنية ستيل كأخاتنا وأقويهم كودي يرجع كودي يعلماء الدين كودي المجتمع يبقى أي شيء عن كل حق ولا خين وبمزوجين إن كتشدان دنه هذا يأيه هذا أو أي سوء عليان مهيمنة دي أي كل حيين كل الصومالية يجا أو كنتي درامي مسؤولية دكسر ريج إلى أنت من ماذا ودك الصومالية تاسو إلى ما أنت كنتي أي بحين runtii price aad u qaali ah ay bixinayaan runtii aad baan u mahadcelinayaa waxaan kaloo mahad kale u jeedinayaa ummadda Soomaaliyeed degan adduunka dacaladiisa iyo Soomaaliya gudaheeda sida diiran ee arrinka ay ugu riyaaqeen u soo dhaweeyeen oo aad moodisay arrin ay wada sugayeen inay ka soo iftiintay magaalada taariikhiga ah ee Taleex ee ka tirsan Khartoum State of Somalia arrintan oo runtii la oran karo waxay soo dhaweysay in dib ay soo noqoto wada jirkii ummadda Soomaaliyeed iyo qarankii sharafta lahaa ee aynu iska burburinay waxaan sidoo kale mahad aad weyn u soo jeedinayaa dowladda federaalka Soomaaliya oo garwaaqsatay baahida ay u qabto in ay u aqoonsato si official ah Khartoum State of Somalia inay tahay maamul goboleed buuxa oo si toos ah ugu xiran federaalka Soomaaliya taasoo lafdhabar u noqon doonta soo celinta jiritaanka ummadda Soomaaliyeed ee hawada ka maqneen dhowr iyo 20 sano si gaar ah waxaan ugu hambalyeeyaa madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Ahmed iyo Prime Minister Cabdi Weli iyo golihiisa wasiirada iyo baarlamaankaba sida geesinimada leh
ee ay mowqifka adag u qaateen iyada oo uu saaraa cadaadisyo aad u fara badan oo uga imanayay dadyow iyo dad leh dana gaar ah. mar labaad waxaan aad ugu hambalyeynaya ummadda Soomaaliyeed guusha ay gaadheen ee ay horseedka iyo hormuudka ay ka tahay maamul goboleedka Khaatumo State of Somalia iyo raggii u lahaa aqoonta sare maamulka dawliga iyo khibradda siyaasadeed ee runtii u huray waqtigoodii iyo caqligoodii iyo naftoodiiba in ay ka bilaabaan taleex soo celinta jiritaankii iyo qarannimadii ummadda Soomaaliyeed. waxaan kaloo si aad iyo aad u weyn u salaamaya anoo ka mid ah jaaliyadda Khaatumo State of Somalia ee ku nool Minnesota, dadka volunteerska ah ee habeen iyo maalin rag iyo dumar leh oo u taagan sidii ay hiil iyo hooba ay ula garab taagnaan lahaayeen hanashada iyo kobcinta maamulkaas ordinka ah iyo sidii uu lugihiisa isugu taagi lahaa Soomaalina wax ugu qaban lahaa. waxaana ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogaan ka codsanaynaa in Khaatumo State of Somalia waxa ay u taagan tahay ay tahay wax qof kasta oo Soomaaliya inuu isu taago ay tahay, sidaa daraaddeed laga rabo moral support iyo financial support iyo wax kasta oo markaas ka saacidaya muhiimadda weyn ee taariikhiga sidii ay u gudan lahaayeen. aad baad u mahadsantihiin. waxaan kaloo mahad gaara siinayaa meediyaha all SSC ee duubaysa cajalkan hadda aanu ka hadlayno. waad mahadsantihiin. بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan salaamayaa number 1 bahda meediyaha all SSC iyo dhammaan meediyaha SSC reer Khaatumo. waxaan halkan idinka soo gudbinayaa salaan kal iyo laaba. waxaan intaa ku xijinayaa in maanta aan hambalyo u dirayno dhammaan shacabweynaha Khaatumo State of Somalia meel kastoo adduunka ka joogtaan. waxaan idiin soo diraynaa salaan kal iyo laaba. waxaan idinka hambalyeynaynaa maamulka Khaatumo State of Somalia oo loo aqoonsaday si aqoonsi dhab ah in uu yahay maamul goboleed ka jira dawladda Soomaaliya kamida dawladda federaalka hoos yimaada. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay dawladda federaalka Soomaaliya sida ay u soo dhaweysay maamul goboleedka Khaatumo State of Somalia ee ay wada shaqaynta joogtada ula yeelatay una saxeexday xubnaheeda ugu sareysa ee ugu sareeyo Sheikh Shariif Sheikh Ahmed presidentaha Soomaaliya. aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan, gaar ahaan dadweynaha ka soo jeeda Khaatumo State of Somalia. waxaan leenahay guul iyo hambalyo idinka oo maanta wixii ka dambeeya la mid ah maamul goboleedyada kale ee ka jira waddanka Soomaaliya sida Puntland State of Somalia, Galmudug State of Somalia iyo maamulka Somaliland. idinkuna kuwaas oo kale aad la mid tihiin. waa inaad waddankiina maanta laga bilaabo dhisataan, waa inaad horumarkiina ka shaqaysaan, waa inaad wixii aad xaq ugu lahaydeen dawladda Soomaaliya maanta laga bilaabo. waxaan rajaynaynaa si official inay idin soo gaadho idinka oo aan meel la idin soo marin, idinka oo maaragtay aan cidna u daba fadhiyin. ummadda Soomaaliyeed qaybtiinii waddankiinana dhismihiisa iyo horumarkiisa iyo waddanka isku xidhkiisa iyo soo celinta dawladdii Soomaaliya arrimahaas oo dhan idinka idin yaalaan haddaad tihiin dadweynaha shacabka reer Khaatumo State of Somalia ee dega dhulka Sool, Sanaag iyo Cayn. arrimahaas oo dhan idinka idin yaalaan. ilaahayna waxaan idinka baryayaa guul iyo gobonnimo. بسم الله الرحمن الرحيم. مقعي محلي رادا أبا عبد أولل وحن كتر سنة هاي بيلها قاتمة كأبترستا هالكم وحن قوة فردنا جدي قاتمة سيدا حل كسنة ماذا وجو أديجي سي مجتمع عدا دلك يدي بدأ كارهان أوفردي من مجال من الصورة وحن تهنية جارة يبقى عن ودرنا شعب كي يجمل كستا يجوجان غير قاتمة دل يدي بدأ كارهان وحن أنا شخصيا عن أورلها بتهنية الجواد وحن سينا يا شيخ شريف oo leh mudnaanta koowaad oo ah presidentaha Soomaaliya
intaa waxaan raacinayaa farxadda dheeraadka inay ila qaybsadaan dadkii gudaha nagula jira ee gudaha naga jira ee ku abtirsada bahweynta qaatuma waxaan leenahay wada shaqeyn wacan maanta laga bilaabo mas'uuliyadii labada dhinac inaga xigtay waanu ka wareegnay waxaynu nahay mas'uul ayaga iskood u taagan matala sida iyaga dadkooda u matalaan waxaynu nahay dad ismatala maanta oo aan la matalin kana midaysan labada maamul ee dhinacyada naga jira sida kan Puntland iyo kan SNM waxaan leeyahay hambalyo wanaagsan haddaad tihiin bahweynta ku abtirsata qaatumo waa guul noo soo hoyatay iyo bishaaro waa taageero aan siinayno shacabka iyaga kalsooni niyad hadda kadib dee lama oranayo ceelina uma qodna cidna uma maqna innaga ayaa u tashanayna dhulkeenna shacabkeenna hawsheenna waxaynu hor yaalana innaga ayaanu qabsanayna maanta laga bilaabana waxaynu nahay mujtamac meel ku wada urursan oo taladooda ay hal meel ka go'do go'aankoodana hal meel laga qaato haddaynu nahay reer Minnesota iyo all state oo dhan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم magacayga waxaa la Felis Dimaan Isiga waxaan ku noolahay Mareykan gobolka Minnesota Minneapolis waxaan ahay Piastrada volunteeriga ugu shaqeysa Fatima State waxaan u hambalyeynaa shacabka iyaga dal iyo dibadda meesha ay joogaan kartida ay sida fiican u shaqeynayaan ugu halgameen inay dalkooda iyo ciidooda hantiyaan ama gobonimada Soomaaliya u diraan oo ay tahay meesha aan joogno maanta meeshii Soomaaliya madaxdeeda iyo maaragtay loogu dagaalamay calanka buluuga ah maantana aanu barti ka soo noolaynay aan rabno inaan isku xidhno Soomaali aanu inta u dagaalamayno habeen iyo maalin calanka buluuga sitaan waxaan u hambalyeynaa shacabkayga sida fiican u halgama ka banaanbaxaya Taleex buuhooda iyo gobolada iyadoo dhan kuwa la socnood gudahooda ku jira oo iyagana wada adwoon way gudahooda أنا أقبل سنة هاي إني علن كبلوجة ما الله بايك الله دونا وحكوا حاجة الشيخ شريف وصل شرفت لأنا ونص شرف لأنه كاني سيدات كلاتك سنة أقول سجى ولاديان أما مرة هي الله عالم لأنه بس شرف لأنه كان ورقة نفس شرف لأنه وصل حي أد مهتسين هاي مرتدى يهدي عن شيء مدح ضيضة عاد بنوهم بلينا ولا راها كونفرنس دوكلا قلمود دولة الفدرالك كل وانوهم بلينا waxaan rabaa inaan halkan kala hadlo horta shacabka guud aan walaalaha nahay walaalaha ku sugo dadku markuu nabad iyo amaan afkiisa adinkiisa kala helo walaalnimada islaamnimada wada dhaqan shacabka Puntland ma aha inay faroole maalin walba oo TV-ga soo istaago fartaan qaadno marna alqaacida nagu sheego marra oo madaxdayada caayo anagu horta uma inay u jawaabaan maaha dadka maanta ay la hadlaan maanta u dambeysay inuu TV-ga yimaado oo faragelin ugu hayo aad baan uga xumahay shalana anaga la dhisno heerka uu taagan yahay gaarsiinay maanta in adeer waanu ka tashanay faragelintaada inaad naga dayso ninba waxa la yiri waa ku wuxuu lahaa saddexda naagood wuxuu u aaday Sacuudiga markuu aaday sida caadiyan ragga waaga hore waxa caadi ka dhigan jireen inay naagta miweynta ama diiniyan badas igu soo hormaraan iyada waxay sidaan u keenaan habeenkii ugu horeeyay miweynta u yimid wixii uu sideen iyada u keenay habeenkii xigayna talabaad waxaana caadiyan ka dhigtaan raggu marka weyn miyarada inay waxay sidaan u badiyaan miyaradii oo dheeman iyo wax kasta loo waday waa tii labaad habeenkii aqalkii buulkeeda gubtay miyarada halkaas ku weyday wixii loo siday iyo xaqeedii iyo xuquuqdeedii marka miyaraha noqonina calanka Soomaaliyeed ba soo wadnaa iyo nabadda وين عاد أمان السياسة فرح نجا قادم وأنصاص كوجهم بلينا تيفي دمنا ها إيمان الرماية يجنا هكهل أمان كانوا جد ذا بسم الله الرحمن الرحيم نقعي وحويان خضر السعيدة وعبدي وحن كنا لها قبل كل من سارة إذا في مريكنكا وحن بقي أتريا مامك خاتمه شعبك رير خاتمه أردن تهنيت بان لا يهاي قبل كنا إمام كنا سلوا أقوى سكين عادي بان هم بقي أتريا هم بقي أتريا أول أمد رير خاتمه أردن شعب كنا أنا جو عاد ومهد ليا شيخ شريف سيد عن سودوية مام في سودوية هذه عاد من سيها عن هاي تي إلى هاي هكذا
maxaahiday dalkeeda iyo dadkeeda oo anfacda maxaahiday horumarkeedana maanta Soomaaliya inay baaba'san tahay cid kasta waa ogtahay tii u horseeda calanka Soomaaliya everywhere maanta Soomaaliya oo dhan u soo gaarsiisa nabadka ilaahay soo dabaalo ilaahay ha ka dhigo in ilaahay maanta inta 2022 ilaa maanta ilaa dawlad ahayn ilaahay tii midka wada dhigi lahay Soomaaliya oo dhan midka wada dhigi lahay ilaahay ha ka dhigo insha Allah aad iyo aad baan salaam ya shacabka sheekh Khaatun joogaan hambaliyaan u diray السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد عباس جيله قدوميها قلقة دريال دتك يدلك خاتم ستيت أوف سوماليا عادي هذا وحنا وهم بلينا إياه سدا ونأكسن شريف هوشي خاتم لهيد وأتشيبي عادي هذا بروح هم بلينا وحالنا هيدتك دناها جاركا له الدنيا خاتم إني مرور بمعجان عادي فديان حمان كل رقمان وأنا أغنى وأنا لا سعنا وحنا جعلها إنه فرحنا قاعدان معمول قولات بعنا هاي معمول دنيه سيدات أرمي وذكرت الشدة بعنا هاي وحنا نفرولة أرمها عاد كل دقائق وحنا هو مدير ويكاد من سايس عابين تركنا حقوق ردماننا وحنا جعلها مرة والبع تذكر خير خاتمين الدنيه وذيايو وذكرت الشدان ولبنا sida wanaagsan aan u jecelahay inaan mar walba dadkayga u baraarujino qolka iyaga daryaal inay nala soo qayb galaan oo ay community-ga kii dan gaar ah wata in uu dadkiisa u soo noqdo oo uu mar walba dadkiisu hore u dhaqaaqeen inaanu dib uga dhicin baa loo baahan yahay marka dhammaan heer khaatum aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya adduunka meel kasta ka joogaan waana idin salaamaya insha Allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa maxamed maxamuud ismaaciil degan magaalada Minneapolis gobolka Minnesota North America waxaan ka mid ahay guddiga koylaatanka ee reer Minnesota waxaan halkan hambalyo iyo bogaadin uga dirayaa beesha Khaatuma State of Somalia guusha weyn ay gaareen waxaan aad iyo aad uga mahadnaqaynaa sida sharafta leh Soomaalinimada ku jirto ee uu madaxweyne Shariif uu ku ogolaaday kuna saxiixay waraaqdiga aqoonsiga ama goon isku taaga waraaqdiga aqoonsiga wada shaqeynta Khaatuma State of Somalia iyo dowladda federaalka uu saxiixay aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqaynaa haddaan nahay jaaliyadda ku nool gobolka Minnesota waxaanu leenahay labada maamul hareeraha ka xiga Khaatuma State of Somalia aanu ku wada noolaano daris wanaag iyo maaragtay isxiriirin iyo iska warhayn faragelintana hal iska daayo sababtoo ah waxaanu nahay goboladiina ka mid la mid ah marka aanu sidaas ku ixtiraamno waxaan mar saddexaad iyo mar labaad u mahadnaqayaa sida sharafta leh ee maaragtay dawladda uu administrationka uu maamulka yahay Shariif uu noogu u ogolaaday Khaatuma State of Somalia inay noqoto gobol gooni ah oo maaragtay hoostaga dowladda federaalka wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh I'm not going to be